Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meel kastoo aad joogtaan. Waxaan ahay Imaan Jaamac ku soo dhawaada kanaalka wararka iyo dhacdooyinka dunida ee Imaan Jaamac. Intaanu guda gelin warbixinteenna waxaan ka cudurdaaranayaa inaan jadwalkeennii joogtada ahaa ee kanaalkan oo warar iyo dhacdooyin balahay maalin walba inaan la helin maalmihii ugu dambeeyay. Tanani waxay ahayd waxa ku yimid mashquulkeena hadduu eebe idmana waxaad dib u heli kartaa maalin walba macluumaadkii iyo wararkii dhacdooyinkii maalin walba aad ka heli jirtay kanaalkan YouTube ee Imaan Jaamac. Jadwalka hadda inoo bilaabanayana hadduu eebe idma wuxuu noqon doonaa jadwal si dhammaystiran diiradda u saaraya kanaalkan si maalin walba iyo saacad walba u heshid macluumaadka dhacdooyinka isla saacadda ay dhacayaan iyo falaqaynba. Dhinaciina waxaan ka codsanayaa inaad kanaalkan faafisaan oo aad ku biirtaan intiina qaybtana ka ahayn intiina qaybta kaana inaad warbixintan oo laga yaababa inay ku jiraan waxyaabo oo diidi kara YouTube-ka inaad sare u qaadaan falcelinta gaar ahaan like-ta iyo share-ka warbixinta taasoo suuragelinaysa in warbixinta ku raagto kanaalka ama waqti walba la helo. sidoo kalena saaxiibadan la wadaaga tanina waxay qayb ka qaadan kartaa koritaanka oo nagu dhiirigelinaysa in aan sare u qaadno macluumaadka iyo falaqaynta maalin walba aad halkan ka heli kartid. mar kale soo dhawaada waxaan rabaa intaan warbixintan ku guda jiro inaan ku siiyo macluumaadka iyo falanqayn la xiriirta heshiiska xabad joojinta ee marinka Gaza taasoo xataa xubno badan oo ka mid ah saaxiibadana qaybta ka ah barahayga iyo kanaalkan YouTube ay cusbeen inaan ka soo gudbino falanqayn iyo macluumaad heshiiskii dhawaan la gaaray ee suurageliyay in muddo dheer kadib xabad joojin ay ka dhaqan gasho marinka Gaza. Heshiiska wuxuu ku bilaabmay sii deynta 3 haween Israa'iiliyiin iyo 9 Falastiiniyiin oo laga sii daayay xabsiyada Israel xilli dambe oo xaddi ah. Intaan ku guda jirno falanqaynta macluumaadka waxaan ku siinayaa dareen caqli gal ah oo ku ogolaanaya inaad ka fakirto wax kasta oo heshiiska ku saabsan si aad u go'aamiso natiijada la gaaray 15 bilood ee dagaalka xasuuqa ah oo marinka Gaza ka socday. Xagaag waa inaan jawaab u helnaa ugu horreyn heshiiska Gaza ma guulba laga arkay mise guuldarro haddiise ay jirto guuldarro dhinacay qaatay guuldarradaas. isku soo wada duubo marka loo eego caqli-galnimada dagaalada military waxa ka soo baxa dagaalka waa kaliya guul iyo guuldarro. waxa loo arkaa cidda ku guuldareysata inay gaarto hadafyadii dagaalka ay u gashay inay tahay cidda guuldarrada la kulmaysa. aan ku horeeyay Israel maxay ahaayeen ujeedooyinka ay dagaalkan ka lahayd Israel. kaliya ujeedadu waa 3 qodob taa ayaana ah waxa ka dambeeya ee raadinaysa inay gaarto Israel markii ay gudaha u gashay marinka Gaza bishii October sanadkii 2023. saddexda hadaf ee dagaalkan ka lahayd Israel ay ku dhawaaqday markii ay marinka Gaza gudaha u gashay waxay ahaayeen burburinta awoodda Hamas, barakicinta shacabka Gaza si ay ugu soo gasho marinka Gaza inuu noqdo meel bannaan oo gacanta ay ku dhigto Israel. midda ugu muhiimsan ee Israel ee dagaalkan ka doonaysana waa inay Israel awoodo inay soo furato in ka badan 200 maxbuus oo Hamas ay ku soo qabteen weerarka ay ku qaadeen 7 bishii October ee sanadkii 2023 dhulka Israel haysato. hadda waxaad ogaatay natiijada ay dagaalkan ka raadinaysay ama hadafyadii Israel ee dagaalka. miyaa haddaba la gaaray hadafyada ama qaar ka mid ah? dhab ahaantii Israel ma aysan gaarin dhammaan 3 ujeedada ee dagaalkan ay u gashay. jawaabtan waxay noqonaysaa si fudud waa inay Israel ay ku guuldareysatay inay gaarto dhammaan hadafyadaas. tani waxay la macno tahay Israel way guuldareysatay sababtoo guuldarro ayaa ka soo gaartay dagaalka. waxay la kulantay khasaare aad u xun oo xagga awoodda military ah, qalabka, dhaqaalaha. dagaalka wuxuu meesha ka saaray dacaayadii Israel iyo kalsoonidii dadka Israel ay ku qabeen maamulkooda inuu yahay mid ku filan ilaalinta nabadgelyadooda. haddaba haddii aad ogaatay in ay guuldarro la kulantay Israel waxaan hadda ku siinayaa ujeedada ay ka lahayd weerarkii ay 7 bishii October ee sanadkii 2023 ay qaaday Hamas. si la mid ah dhinaca kale waxay Hamas lahayd kaliya 3 ujeedo oo kala ah in la jabiyo khuraafaadka iyo isla weynida Israel ee ah inay tahay awoodda gobolka inay ciidamada Israel yihiin kuwa aan laga guuleysan ilaa maalinta u dambeysay inay Hamas gacanta ku hayn karto maxaabiista ay ka soo qafaalato gudaha Israel si ay gorgortan u gasho ka hortaga in la jabiyo adkeysiga dadka Gaza oo laga barakiciyo marinka Gaza. hadafyadan ama qaar ka mid ah ma la gaaray sida ku cad heshiiska lagu dhawaaqay ee la dhaqangeliyay ayaa ina siinaya natiijada ay gaartay Hamas. waxayna gorgortankii heshiiska la gaaray uu noqonayaa caddayn aad gacanta ku qaadan kartid oo ku tusaysa inay Hamas guul dheeraad ah gaartay oo ay ka dhaxeleen waxyaabo ka badan ujeedooyinka dagaalka ay u galeen. iska cabinta Gaza waxay awoodeen inay burburiyeen isla weynidii iyo dacaayadii Israel ee lagu hor iibiyay caalamka ilaa dad badan ay run u qaateen dacaayadda ay soo bandhigtay Israel taa oo gaarsiisay inay noqoto Israel mid gobolka bariga dhexe ee caalamka mar walba u dirta hanjabaad. iska cabinta waxaa kale ay awoodeen muddo 15 bilood oo dagaalka xasuuqa ah uu socday inay meesha ka saaraan khuraafaadkii ciidan aan laga adkaan karin iyo in iska cabinta ay u rogeen Gaza fagaara ay ku soo bandhigaan daciifnimada Israel iyo taageerada reer galbeedka. dagaalkana waxa uu iska cabinta u rogay awood aan indhaha laga daboolan karin.
waxaan ku siinayaa xaqiiqooyin kale si aan u xaqiijiyo waxyaabaha aad maqashay. Waxaan ku siinayaa xaqiiqooyinka ay soo bandhigtay shabakada wararka Mareykanka ee Menthouse oo markii la ansixiyay heshiiska soo bandhigtay faallo ay ku muujinayso waxa uu ka dhigan yahay heshiiskan. Warbixinta shabakada waxaa lagu sheegay xabad joojinta Gaza ayaa muujinaysa daciifnimada Israel iyo xoogga iska caabinta. Xabad joojinta kadib qaar badan ayaa isku dayay doona inay ka hadlaan oo natiijada ay kusoo koobaan guul iyo guul darro. Laakiin marka qof kastoo dib u eego waxa dhacaya, waxaa soo bixi doona sawirka dhabta kaas oo ah daciifnimada Israel inay iska caabinta isku rogeen awood. Warbixinta way sii socota waxaana lagu sheegay ciidanka Israel ee halyeega ahaan jiray waxay noqdeen ciidan naxariis daran oo aan waxba tari karin kadib markii lagu jabiyay dunida horteeda. kaliya lama kulmin Israel guuldarro military, balse waxay indhaha caalamka qabteen inay Israel ka tallaabsatay sharciyadii caalamka iyo nidaamkii akhlaaqeed ee military. balse iska caabinta Gaza ayaa soo bandhigay wax kasta oo Israel ay ku kacday, haddana inay tahay midda daciifka ah ee military iyo sirdoon ahaanba loo burburiyey. aan ku soo celiyo, marka aan eegno qodobada heshiiska xabad joojinta Gaza, waxaan aragnaa in Israel ay lumisay qaar ka mid ah waxyaabihii ay isku dayeysay inay ku gaarto cadaadiska military ilaa heer xasuuq ay ka geysatay marinka Gaza aan dunida horey loo arag, taasoo keentay in marinka Gaza si dhaqso leh loogu tilmaamo goobta ugu adag ee aadana uu ku nool yahay iyo goobta dagaalka ugu daran dunida la kulantay. marka koowaad waxay lumisay salgeedii Nasrim iyo Philadelphia oo labadaba ay qorsheynaysay Israel inay noqdaan xarumo ciidan oo gumaysigu uu ku lahaan karo marinka Gaza, sida ay awoodeen inay ka sameeyaan oo kale daanta galbeed oo ugu dambeyntii ka dhigtay daanta galbeed meel gumaysi ku hoos nool. tan labaadna waxay awoodi weyday Israel in marinka Gaza laga go'doomiyo xuduudda Masar. luminta Israel ee labadan saldhig waa mid muhiimad siyaasadeed iyo mid ciidanba leh. in Israel ay ka baxdo marinka Gaza sidaa daraaddeedna ay ku fashilanto qabsashada saldhigyadan, maadaama Netanyahu iyo Sahnuuniyiintuba ay qorsheeyeen, isagoo xuseyn in Israel ay doonayso joogitaan dhab ah oo ku yeelato saldhigyadan. markaa oo uu ku andacooday inay ka bixi doonaan goobaha la degan yahay oo dadka rayidka ay ku sugan yihiin, balse aysan ka tegi doonin labadan marin, isla markaana ciidankooda ay joogitaan rasmi ah ku yeelan karaan. sidaa daraaddeedna ay xaq u leeyihiin inay joogaan marinada Gaza ku xiraya Masar iyo saldhigga ay doonayeen inay ku kala gooyaan marinka Gaza si ay ugu dambeyntii marinka Gaza ugu rogaan goob gumaysi ku hoos jirta si la mid ah waxaan ka aragno daanta galbeed. marka saddexaad in la nadiifiyo xabsiyada Israel ee lagu hayo haweenka iyo kuwa aan qaan gaarin ee Falastiiniyiinta da'doodu ka yartahay 19 sano. tani waa guul weyn oo ay gaarayaan iska caabinta iyo Xamaasba, maadaama ay yihiin mustaqbalka iska caabinta ka hor imaan doonta Israel. dadkan hadda sida khasabka loogu khasbay inay Israel ka soo sideyso xabsiyadeeda, siideyntoodana waxay u ogolaanaysaa inay soo saaraan dad cusub oo Falastiiniyiin ah oo leh qaacido dagaal oo hor leh. waana sababta hadda aad u aragtay maalintii koowaad inay door biday Xamaas in la soo sii daayo haweenka iyo carruurta ku xiran xabsiyada Israel. tanna waa natiijo weyn oo ujeedada ka dambaysa ay tahay in la helo jiil cusub oo Falastiiniyiin ah, iyadoo la ogyahay in inta badan hogaamiyaasha wax iska caabinta ee hadda jirta inay ahaayeen maxaabiis hore oo laga soo sii daayay xabsiyada Israel. waana guusha iyo sirta ay Falastiiniyiintu leeyihiin in mar walba ay soo faarujiyaan xabsiyada Israel si ay u soo saaraan jiil cusub oo iska caabina oo xabsiyada ku soo arkay si aan sharaxaad u baahnayn wajiga Israel. tanna waxay keenaysaa inay noqdaan kuwa adag oo ay ka go'an tahay qaacido adag oo dagaalna kala hortagi kara Israel. waana natiijada guuldarrada hadda ay dusha saaratay Israel iyo waxaan ka aragnay marinka Gaza oo adkaysi iyo in Israel ku guuldareystay inay military ahaan iyo dareen ahaanba u burburiso dadka reer Gaza iyo iska caabinta Gazaba. marka afraad isla sidaas oo kale waxaa Israel lagu khasbay in kumanaan maxaabiis ah oo ka kala tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada Falastiiniyiinta in laga sii daayo xabsiyada Israel. waxaana la filayaa in mustaqbalka ay door siyaasadeed iyo mid military ay ka qayb qaataan. xabsiyada Israel run ahaantii waa meel ay ka helaan tababar aan goob kale qofka aadanaha ka heli karin. tababarkaasi ma ahan wax kale, waa nacaybka iyo wajiga dhabta ah Israel inay Falastiiniyiintu arkaan, taasoo markay banaanka yimaadaan u diyaarsan inay iska caabin awood leh iyo qaacido adag ay kala hortagi karaan Israel. tanna waa sababta ay Israel ugu guuldareysatay xasuuq iyo weerar walba ay ka geysatay marinka Gaza iyo hub walba ay u adeegsatay inay jibiso adkaysiga. waana kala duwanaanshaha u dhaxeeya qofka aadanaha ee ku nool meel ka baxsan Gaza iyo dadka reer Falastiin ee Gaza ku nool, taasi oo dad badan ay u arkayaan wax la yaab leh, iyadoo waxaas oo dhan ay ku dhacayaan dadka Gaza haddana inay ku adkaysanayaan joogitaankooda iyo wax iska caabintooda.
tani meel fog ma ahan waa wax ka yimid isla xabsiyada, waana sababtaan u arkayno mar kasta inay xamaas raadiso inay israa'iiliyiin soo qafaalato soona sii dayso maxaabiis, kuwaasoo natiijada iyo ujeedka laga leeyahay ay tahay inay soo saaraan jiil cusub oo qaacido adag iyo iska cabin adagba kala hortegaya Israel. marka shanaadna heshiiska iyo iska cabinta ay la kulantay Israel 15 bilood ee u dambeeyay wuxuu burburiyay hadafkii dagaalka ay kala hayd Israel. wuxuu ka dhigay Israel kuwa aan qiimo lahayn oo ololayaashooda ama loobigii Israel ee caalamka gaar ahaan Mareykanka waxay noqdeen kuwa aan tixgelin heli karin. sabab la xiriirta waxay ku guuldareysteen inay gaaraan hadafkii dagaalka haddii xataa ay heleen taageerada military sirdoon iyo dhaqaale ee Mareykanka iyo reer galbeedka muddo 15 bilood ah oo ay Gaza ka howlgalayeen. in ka badan $30 bilyan ayaa la aaminsan yahay Mareykanka iyo reer galbeedkaba inay ku bixiyeen dagaalkii 15 bilood Israel ay ka waday marinka Gaza, kaasoo ugu dambeyntii kusoo dhamaaday waxaan aragnay iyo natiijada inay noqotay mid fadeexad usoo jiiday Israel. marka lixaad iska cabinta waxay dunida tuseen xaqiiqada Israel, taasoo ay Israel tahay mid daciif oo aan socon karin la'aanta taageerada Mareykanka iyo reer galbeedka. dunidana lagama jecla inaad tahay mid daciif ah oo tallaabada qaadaya u baahan in la taageero, taasoo ugu dambeyntii keenaysa in lagu khasbo. sida haddaan aragnay Israel waxay qaadatay heshiis dabcan si adag loogu khasbay oo ka yimid natiijada iska cabinta Gaza iyo in awood kastoo military ay gaari waayeen taageerayaashii Israel. hadda rumayso hadalkayga, heshiiska ay ogolaatay Israel waa midkii la soo bandhigay bishii May ee sanadkii 2024. mana jirin wax iska bedelay oo heshiiska lagu sameeyay. isla maalintii la soo bandhigay waxaa ogolaatay Xamaas maadaama heshiisku uu dhigayo dhaqangelinta shuruudaha iska cabintu ay doonayeen. isla waqtiga waxaa diiday Israel oo sii waday xasuuqa Gaza iyagoo ku andacoonaya in cadaadis military ay ku dhalin karaan inay ku khasbaan Xamaas inay qaadato heshiiska ay Israel qorayso. laakiin taasi ma suuro gelin. natiijaduna waxay noqotay heshiiska ay qortay Xamaas inay Israel ugu dambeyntii ansixiso. sababtoo ah taageerayaasha Israel ee Mareykanka iyo reer galbeedka waxay wajaheen xaqiiqda ah inaan cadaadis military lagu jabin karin Xamaas iyo adkeysiga dadka Gaza. ilaa hadalkan waxaa qiray maalmo ka hor marka la ansixiyay heshiiska xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee xilka ka degaya Antony Blinken. inta aanan ka bixin falanqaynta iyo macluumaadka la xiriira heshiiska xabadjoojiinta Gaza ee aan kuugu sheegay guusha Xamaas, waxaan doonayaa isla fikradaha iyo macluumaadka ku siiyay mar kale inaan kugu qanciyo. waa inaan halkan kugu siinayo qirashooyinka guuldarada ay la kulmeen oo gudaha Israel laga maqlayo. wasiirka arrimaha dibadda Israel Godin Sar markii la ansixiyay heshiiska waxa uu sheegay in Israel aysan gaarin hadafkii dagaalka. si kastoo ay xasuuq uga geysteen Gaza, wuxuu intaa ku daray oo uu yiri muddo bila ah maanan soo celin hal maxbuus oo nool. marka mas'uuliyadda nasaaranay xukuumad ahaani waa mid culus. dabcan taasi waxay la xiriirtaa in ugu dambeyn tanaasulka waxa ku dhariyay tahay guuldarada iyo xaqiiqada ay wajaheen. Gorio Allen oo ah sarreeyo guud oo shaqada ka fadhiistay oo ka tirsan ciidamada militariga Israel ahaana madaxii hore ee golaha amniga Israel ama golaha ugu sarreeya ammaanka Israel, waxa uu ka mid ahaa tiro jaranaal ah oo soo bandhigay waxay ugu yeereen qorshaha barakicinta Gaza oo la gaaray bilihii ugu dambeysay. wuu soo baxay markii heshiiskan la ansixiyay isagoo ka sheegay telefishinka Israel ee Channel 12 wixii ka dhacay Gaza inay ahaayeen guuldarro weyn oo soo gaartay Israel iyo guul u soo hoyatay Xamaas. sarreeyahan guud oo sidoo kale ka qayb qaatay dejinta qorshaha lagu barakicinayo dadka ku nool waqooyiga marinka Gaza iyo in marxalad gaajo iyo duqeymo arxan darro lagu soo rogo 6 bilood ee u dambeysay ee dagaalka ka socday marinka Gaza, si gaar ah waqooyiga marinka Gaza, ayaa waxa uu ku sheegay wareysiga uu bixiyay. waxa dhacay waa guuldarro, dagaalkan waa guuldarro, sababtuna waa wax aad u fudud. Xamaas kaliya maysan awoodin inay ka hortagto Israel inay gaarto hadafkeeda, laakiin sidoo kale waxay gaartay hadafkeeduna waa inay sii ahaato mid xoogan oo maamusha marinka Gaza. wuxuu intaa ku daray heshiiska waxa kale oo siinaya Xamaas fursad ay dib ugu dhisto mar kale awoodeeda, waana ay dhisi kartaa awoodeeda haddii ay sidaas samayso oo Israel ku dhaqaaqdo tallaabo liddi ku ah. marka Israel ayaa midda jibinaysa heshiiska oo ceeb la kulmi doonta. suxufiga ay sida weyn isha ugu hayeen falanqayntiisa iyo hadallada ka soo baxaya Israa'iiliyiinta muddada uu dagaalka socday oo ka tirsan wargeyska Maarif waa bin Kasab ayaa isna soo baxay si uga falceliyay heshiiska xabad joojinta. wuxuu yiri tani waa gabi ahaan waa masiibo, guuldarro taariikhi ah. maahan oo kaliya ciidamada in guuldarradu la kulantay, laakiin sidoo kale sirdoonka Israel ayaa la kulmay fashil iyo guuldarro. fashilka inta kuma joogsan, sidoo kale dowladda Netanyahu ayaa fashilantay oo dhammaan guuldareysatay. waa baaxad weyn yahay fashilka oo wuxuu gaaray in nidaamkii Israel uu burburiyo qabkii iyo kalsoonidii dadka Israel
maadaama ay ku guuldareysteen inay dhisaan dal ammaana oo fursad u siinayo Israa'iiliyiinta inay sariirtooda ku seexan karaan si nabadgelyo ah. Ugu dambeyntii natiijadu waxay noqotay fashilka Israa'iil. Si loo cadeeyo, wuxuu qof walba arki karaa inay awoodi weyday Israa'iil hirgelinta hadafkeeda ay kaga dhawaaqday dagaalka Gaza ee ah baabi'inta Hamas, soo celinta maxaabiista iyo inay hubiso in marinka Gaza uu noqdo goob aysan mar kale khatar uga imaan karin. Weerarkii daadadka Al-Aqsa ayaa noqday mid cidiyaha ka bixiyay Israa'iil oo naxash ku aruuriyay kadib markii dagaalka uu lumiyay maqaamkii ay isku soo muujin jirtay Israa'iil. Waxaana meel kasta oo Israa'iil ay dunida taala inuu burburay sheegashadii awoodii ciidan ee Israa'iil. Dagaalkuna wuxuu noqday mid Israa'iil ku qasbay inay noqoto mid ku tiirsan isbahaysi iyo taageerada Mareykanka iyo reer galbeedka. Tanina waxay isbedel ku keenaysaa mustaqbalka Israa'iil oo isku rogtay mid daciif oo aan ku jirin liiska awoodaha. Muuqaalada maalintii ugu horeysay heshiiska ee ka yimid Gaza ayaana noqday mid ka yaabiyay cadowga iyo taageerayaasha Hamasba. Sabab la xiriirta isla saacada koowaad ee waqtiga heshiiska u dhaqan galayay, xafagaarayaasha Gaza lagu arkay ciidanka militariga iyo booliiska Hamas oo wadooyinka u soo baxay iyagoo u muuqaal eg kuwa aan maalin dagaal galin. Hubka, dharka ay xiran yihiin ilaa iyo gaadiidka ay la socdeen kolonyada militariga Hamas dhammaan waxay u muuqanayeen kuwa hadda ka soo baxay warshada. Falanqayntii iyo xaqiiqooyinkeena aan ku eeganay heshiiska xabajoojinta iyo natiijada laga gaarayba intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Waxaan kaga tegayaa fikradiina oo qaybta falcelinta aad noogu reebi kartaan. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.